NFT-gan aad arkayso waa NFT-ga ugu qaalisan waqtigan hadda la joogo wuxuuna ku fadhiyaa qiimo ahaan 91.8 milyan oo dollar. Haddii aad islahayd sidee NFT loo sameeyaa iyo sidee aan u samaysan karaa NFT, muuqaalkani waa muuqaalkaagii ku soo dhow. Assalaamu calaykum, waan idin salaamay asxaabta channelka ku xiran. haddii ay tahay channelka marka ugu horeysa waxaan kaa codsanayaa channelka inaad subscribe saarto, sidoo kaleetana muuqaalka aad like saarto. sidoo kale waxaan raaligelin ka bixinayaa bisha Ramadaan oo asxaab badan ay iga sugaysay muuqaalo badan balse aanan wax muuqaal channelka aan soo gelinin. waxaan sabab u ahaa xanuun yar oo ay qabtay bisha Ramadaan. Hadda waxaan rajeynayaa inaan bilaabi doono muuqaaladeena insha Allah. muuqaalkeen maanta wuxuu hordhac u yahay steebyada aan mari doono markii aan sameyn doono NFT iyo wadooyinka aan mari doono. waxaan u kala qaadan waxay tahay si ay dadka u fahmaan. marka ugu horeysa horta aan ka bilaabno dadka ma fahansan NFT maxuu yahay. haddii aad isleedahay NFT maxuu yahay, waxaa laga soo gaabiyay non fungible token. haddii aan micnaheeda ku soo koobano waxay noqonaysaa shay milkiyadeeda aad leedahay, shaygaasina waa in uu noqdaa shay aan hore loo arag ama hore loo sameyn. NFT marka dadka kaliya waxay u maleeyaan in uu yahay sawir kaliya ama art kaliya, ma aha. NFT noocyo badan ayuu u kala baxay. wax walba digital ayaa NFT noqon kara oo aad leedahay milkiyadeeda. NFT wuxuu noqon karaa tusaale ahaan music, xitaa NFT ayuu noqon karaa, sidoo kale gamingka, virtual fashionka iyo waxyaabo kale oo badan. NFT wax walba ayuu noqon karaa. marka haddii aad u baahan tahay NFT inaad sameyso sida ugu fudud, waxaad u baahan tahay inaad marto steebyadan oo dhan. steebyadan aan ku tusi doono waxaan muuqaalada soo socda. haddaba kan wuxuu yahay hordhac ayuu u yahay. haddaba steebyada aan mari doono maxay yihiin? waxaan mari doonaa steebyadan aan ku tusi doono step by step. haddii aan ku bilaawno midka hore oo ah stepka hore aan mari doono wuxuu yahay markaad rabto NFT inaad sameyso. stepka hore aad marayso waxay tahay waa inaad doorataa marketplace-ka aad ku iibi lahayd NFT-gaaga. anaga waxaan dooranaynaa, waxaa jira suuqyo badan lagu iibiyo NFT-ga. anaga waxaan dooranaynaa suuqa ugu caansan uguna weyn oo ah OpenSea. marka aad OpenSea iska register garayso kadib waxaad u baahan tahay inaad samaysato stepka labaad oo ah crypto wallet ayaad u baahan tahay inaad samaysato. sidoo kale waxaa jira crypto wallet badan, coin wallet, trust wallet iyo kuwo kale aad u badan. anaga waxaan samaysan doonaa MetaMask wallet step by step. step kale ku xiga aad u baahan tahay markii aad samaysato walletkaaga, waxaad u baahan tahay inaad isku xirto walletkaaga iyo OpenSea. inaad fahantay aan maleynahay. haddii aad ila socoto, markii aad isku xirto suuqa iyo walletkaaga waxaad u baahan tahay step kaleeto oo ah inaad samayso NFT-gaaga ama inaad diyaarsato NFT-ga nooc walba uu yahay. sidaan kuu soo sheegay NFT wax walba digital ayaa noqon kara. anaga waxaan sameyn doonaa NFT aan u sameyn doono tusaale ahaan si aad u fahamto hadhoodii sida loo sameeyo NFT. stepka markaad diyaarsato NFT-gaaga, step kaleeto oo ah waxaad u baahan tahay inaad NFT-ga aad diyaarsato inaad geliso suuqa. sidaad suuq u geli lahayd ayadana waan isla arki doonaa. stepka markaad suuqa geliso NFT-gaagana waxaad u baahan tahay in aad blockchain-ka aad ku xirto. blockchain-ka aad ku iibin lahayd ama qiimaha NFT-gaaga aad ku iibin lahayd inaad ku xirto Ethereum hadduu uu yahay. anaga waxay isticmaalaynaa Ethereum wuxuu kaaga baahan yahay gas fee, balse anaga waxay isticmaalaynaa qaab kaleeto oo aadan wax gas fee aadan ku bixi doonin. anagoo isticmaali doona blockchain kaleeto. stepka markaad price ku samaysato waxaad u baahan tahay kaliya marka u dambeyso oo ah in aad marketing ku samayso NFT-gaaga, inaad samayso social media oo dhan, iyo kale Discord iyo meelaha inaad ku share garayso. waa intaas step ayaan mari doonaa step by step anigoo ku tusi doona weliba. haddii aad rabto inaad nala socoto waan kaa codsanayaa channelka inaad subscribe saarto, sidoo kaleetana muuqaalka aad like saarto. sidoo kale waxaan sameeyey telegram cusub. telegramkaas linkii hoose ayaan soo dhigi doonaa, kusoo biir si aad noola socoto wax walba. telegramka aan soo dhigi doono halkaasina wax walba fikrad ama su-aal aad qabto waad kusoo qori kartaa.